Halkani waa Muqdisho Stadium degmada warta nabadda ee magaalada Muqdisho waxaa labadii sano ee ugu dambeeyay lagu bixiyay sidii looga dhabayn lahaa rajada kumanaan dhalinyaro ciyaartooy ah oo mustaqbalka leh kubadda cagta Soomaaliya. Tan iyo intii ay ciidamada Amisom ka baxeen Stadium Muqdisho waxaa loo kacay sidii loo hagaajin lahaa tuulada lagu naanaysi jiray tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho. Kani waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kubaddii ugu horeeyay laagay si uu u furo Stadium Muqdisho. xilli uu madaxweyne Farmaajo soo bandhigay ciyaar kooban oo cajiib ah oo soo jiidatay dadkii ku sugnaa goobta. Cabdiqani Siciid Carab madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa soo celinta tuuladii ciyaaraha ee Stadium Muqdisho ku sheegay inay uga dhigan tahay soo celinta ciyaarihii hoomka ahaa ee xulka qaranka Soomaaliya dalka Jabuuti awalkii hore u ahayd xarun. waxaanu isagoo ka hadlaya uu yiri waxay nooga dhigan tahay inaan dib u soo celinayno ciyaaraheena hoomka ahaa ee aan ku ciyaari jirnay Jabuuti dalka walaalaheena. maanta waxaan xaqiijin karnaa inaan garoon caalami ah ku ciyaarna aan helnay. waxay nooga dhigan tahay marka in ciyaarihii aan ku ciyaarayno Jabuuti ama aan ku ciyaarayno wadamada kale inaan ku ciyaarno dalkeena, taas oo FIFA iyo CAF ay si rasmi ah noogu ogolaadeen. Khadiija Maxamed Diiriye wasiiradda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa dhankeeda ka hadashay munaasabadda lagu furayay Stadium Muqdisho waxaanay tiri mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daahfuray garoonka. horeyna wuxuu u furay wejigii koobaad ee ka qalab gurashada ciidamada Amisom oo muddo 7 sano ah halkan deganaa. maalintaas kadib waxaa la bilaabay nadaafadii wejiga koobaad. wejiga labaad ee waxaa la bilaabay oo ah qaybaha kala duwan ee garoonka. tuuladii ciyaaraha la dhahayay laakiin hadda waa magaaladii ciyaaraha Soomaaliya. wuxuu kaloo ka kooban yahay garoonka kubadda miiska table tenniska oo ku dhex jira xafiisyada iyo VIP-da hoosteeda oo sida aad arkayseen madaxweynaha iyo kooxdii table tenniska ama kubadda miiska uu soo daahfuray. saddexda garoon oo isku jirta ayaa ah wejiga labaad ee garoonka Stadium Muqdisho ama garoonka ciyaaraha Muqdisho. dib u furitaanka Stadium Muqdisho ka soko waxaa lagu qabtay kulan ciyaareed u dhaxeeyay kooxaha Horseed iyo MCC. xilli kulankaasi ahaa mid ku soo idlaaday 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Cawa iyo Maalin ee Horseed. waxaana xusid mudan in Xasan Asaasi goolkii ugu horeeyay ka dhaliyo Stadium Muqdisho isagoo ka tirsan kooxda Horseed muddo 30 sano ah kadib oo dib loo furay Stadium Muqdisho. Axmed Taqaran wararka malcab magaalada Hargeysa.